Wararka la helayo ayaa sheegaya in aroornimadii hore ee Saaka ay ciidanka maamulka Somalilan ay isaga baxeen inta badan aagagii dagaalka ka socday 21kii maalmood ee la soo dhaafay ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Ciidanka Somalilan ayaa baneeyay guriga gobolka Sool waxaana durbadiiba la wareegay ciidanka deegaanka ee SSC kuwaas oo guriga ka dejiyay calankii Somalilan sida lagu arkayay sawirro lagu baahiyay baraha bulshada. Ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Somalilan oo ay uga hadlayaan bixitaankooda aagagii dagaalka ka socday. Laascaanood ayaa waxaa shalay ka dhacay dagaal xooggan oo dhaliyay khasaaro aad u fara badan oo dhimasho iyo dhaawac leh. Ciidanka deegaanka ee SSC ayaa dagaaladii shalay ka dhacay ku qabsaday saldhigyo waaweyn oo ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka Somalilan iyo gaadiid nooca dagaalka iyo hub culus, waxaana ciidanka halkaasi joogay ay aadeen deegaano kale oo ka tirsan gobolka. Kumanaan kun oo qof ayaa ku barakacay colaadda Laascaanood kuwaasi oo ay haatan xaalad ku haysato deegaano ka tirsan gobolka Sool. Ma jirto wax xal ah oo laga gaaray dagaalka Laascaanood oo galay toddobaadkii saddexaad oo xiriir ah.